then waa la blend gareynayaa mashiinka lagu ridayaa kadib halkaasaa lagu ridayaa kadib wax kale dhanaa lagu dhex dardarayaa insha allah. So let's go. Bismillah. muhiim waxaa ku ah alaabtaada inay organic ku tahay taasaa idinka ilaawiya. So inay organic tahay markii aad fiiqaysidna maaragtay just inta kore kaliya ka fiiq waxa dhan inaa ka fiiqdo meelahaas waxaas cadaanka inay ku heraan is okay, is fine, ma baahnid inaa ka wada goysid. Okay, qolofkana mugtaa aad u caraf badan yahay. ilmihiina waxaa idin dhaha badanaa liinta sidaa markaa u fiiqdaan kuwaasoo kale ilmaha maqas u dhiib ha jarjaraan si u helaan farahooda iyo suulka iyo waxa dhan inay isla shaqeeyaan. Okay, mararka qaar xitaa banaanka markaa maraysaan caleenta way soo qaadan karaan guriga keen indana ha iska jarjaraan. ilmahaaga markay preschool yihiin ama ay bilaabayaan nursery ama 4 sano markay gaaraan u bilaabo waxaas. Okay, 3 sano xitaa ilmaha qaar 3 sano iyo bar very skilled ay noqdaan, like way yaqaanaan sida wax loo qabto. marka ilmihiina u daaya maaragteen u fasaxa inay wax qabsadaan maqasta ilmaha safety-ga loogu talagalo u soo gad aad fariiso aadaabta bar kadibna ka faa'iidaysta insha allah. Okay, masha allah. So waa ujeedaan saa liinta u fiiqaayo qofkaas cadaanka ha ka wada qaadin markii aad fiiqanaysid insha allah. Okay, so hadaa wax shaashada taataabo lahaydeen waa idin ducey lahayaa ilaa khayr idin siiyo farahayna ku tasbiixsada mashaashada ilaa ay loofka oo qorxa soco quwad subxaanallah alxamdulillah allahu akbar rih wax faa'iidaya haddana aakhiradaada u shaqeyso adduunyadan joog aakhirana u shaqeyso sidaa markay kuu noqoto ka waay waxaa idin leeyahay ka jarinina. Okay, so kan oo kale haddii aad tahay qof jecel inuu gurigiisa carafsado xitaa waxaa isticmaali kartaa inaad dabka saarto guriga dhan waxaa kasoo carfaya liintaas hadhowti very nice. hadda laakiin xagga iska dhigaynaa then laba qabaa sameynaa idin dhahay soo maaha. so midka labaad aa jarjaraya Okay, inta ku tasbiixsanayso maasha allah subxaanallah alxamdulillah allahu akbar dhaha shaashada markaad taawanaysaan. maxaa la suubinayaa waxaan sameynaynaa liinaa fiiqaynaa kadibna waxaan sameynaynaa antibiyootikada dabiiciga ahayd maalin hore aan sameynaynaa anigii muna iyo ism naga dhamaatay marka waxaan isdahay lifeka intaa sameynaysidna iskaba sameey at the same time. marka haddaa bilaabo so waxba kuma dhaafin soo dhawaawo. qolofkan ilmaha si ha jarjaraan beri ama guriga ku carafso dabka saar ha iska tuurin. Okay, markaa saa dhahdo leentii qolofkeedii xagga iska dhigaynaa hadda kadib waa jarjaraynaa kadibna blenderka gelin doonaa insha allah. Okay, waa isku blend gareynaynaa
waxba lafaa ka bixinin waxba ma ku dhahaa qolofka aad ha uga qaadin okay ani laba xabo waaweyn isticmaalayaa waxaan rabaa inay muddana hayso 10 maalin at least 10 maalin maybe 12 ay gaari doontaa maybe okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواو فلسان مركب سانا دهنا and then وشيدينا okay okay واحد شوية راح لازم نسكب هنا يا okay oh yes so أنا هحط بلندر ككل ذا مركز أسكسي باي 1 second guys بلندر كي هالكين يلا كل ذا يا yes that's it yes gloves ka aniga waa ka dhigtaa procedure ka because ma rabo inaad taabto because you don't want to touch it maahano meel arabta inaad dhigatid maalman inay ku taala arabtaa so let's be hygienic anu maanta sameeyay oh Samria thank you that's good waxaa sii shiday okay maxaa markala sameynaysaa waa inaan la miiraa okay intaan dhalada lagu shubin waa inaan miirnaa 1 second kii lagu miiraya soo qaadaya okay waxaan sameynaynaa iga dabageey mar walba ma xirataa oo cuntada sameynaysid no mar walba cuntada la cunayo ma xirto laakiin marka wax meel la dhigaayo waa xirtaa because you don't want to touch it si kasta gacmahaaga markaa u dhaqdid still gacmahaaga bacteria leeyihiin ya marka so maxaan sameeyaa just markaa jarjaraya xirtaa okay maxaan sameynaynaa marka halkanaa ku miirayaa waa inay kala socotaa waa inay kala miirantaa iyada dhan takes time but dadka nafta wada way u helayaan waqti ma fahanteen dadka nafta wada way yara degdegayaan laakiin dadka ruuxda wada they don't care they have the time so marka waxaad soo qaadanaysaa qaado yar waa ku saasaa dhedhehaysaa si u yara socoto dhaqsi saas marka intay saas sii sameynayso cananaaska waa sii jarjari kartaa haddii kalena waa sugi kartaa oops geesaha lagaa ka daadanan yeah takes time but inshallah Samria marka iga sheekeeyay sidee u isticmaashay oh thank you عبد الرحمن dadka share gareynaya thank you aad ma santiin snapchat-kiina ku share gareeya walaalayaal wax yariis aan dadka rahan way maadaane dadka shaashada garaacay aad ma santiin wow 4k ya marayna ma sha Allah ku tasbiixsada walaalayaal okay iisoo sheegay dad ila sameeyay ma jiraan Samria way iisoo sheegtay inay sameysay waxa ka faa'iideen sidee ilmaha u siisay adiga ma cuntaa yaa su'aalaha way yara badan yihiin
marka muujadaa qol waxaa meeshaan ka socda kuwan marka hadhow tisaan u kala miirto xitaa ha iska tuurin adi iska cun oo vitamin C badan waa mogtahay so waxyaraa weli dhiman koobka hortayda yaalla aada u weyn yahay is like a mug tea mug waaye okay I think intaas ugu dambayso let's go shaashada noo taataabta walaalayaal okay sheeshka sheer gareeya bugaagteena waxaa ka heli kartaan Amazon-ka maanta kale bugaagta ka hadlaa iyo mawduuc waalidiinta ku saabsan wiigan waxaa idin doortay inaan ka hadalno ilmaheena sida immune systemka ugu dhisnaa sida ilmaheena qofacaya iskuulada tagaya sanka diifaya qandhada kusoo boodaysa habeenkii basically and insha Allah soo gelin doonaa laakiin ma sheegi karo waqtigaa soo gelin doonaa okay ilmaha maaragtay badanaa markay mataqaanaa hergeb ku dhaco way qandhoodaan ani waxaa arkay sanadkan maasha Allah ilmaha ma qandhoonin ya sidaas u qalajinaysaa saas marka noqdo is done wixii dhan waa ka miirtay so kan meel iska dhigo and then cun adiga okay that's it bismillah okay marka waxaan sameynayaa kanaa soo dhaqayaa midkan blenderka soo dhaqayaa inta waxaan sameynaynaa cananaaska gelinaynaa okay 1 second guys let's go second part konton qof aan gaarno insha Allah say ku gaari karnaa inaa shaashada taataabataan okay next haddana galabskii aan soo gashanayaa waxaan sameynayaa hadda marka cananaaska sameynaya insha Allah cananaaska in yar loo baahan yahay so inta kale ku soo harta bacaa gelinaysaa waxaa gashanaysaa freezerka okay freezerka gelinaysaa kadib mar kale haddana isticmaale because next week ama 10 days after haddana wixii kaa yara maqnaada la soo gadi doontaa markasta ma u baahnid inaa cananaas cusub soo gadid okay so waxaa loo baahan yahay hadda waa yara badinayaa mogtahay so intaasoo kale is dhahaya waa u baahanayaane so let's go that part oops bismillah xoogaa waa yara dhib sida loo piil garaynayo so gonna peel it waa jajaraysaa qolofkaa ka qaadaynaa so shaashada taataabta please shaashada taataabta okay waxaan ka hadlaynaa antibiotics dabiici sidee loo sameeyaa ilmaheena sidee u badbaadinaa sidee maaragtay hargabka iyo duriga iyo qandhada iyo waxyaabahan sanka diifaya sidee ka caawin kartaa haddii waxaan siisid aan hadda sameynayo ilmaha immune systemkooda kor u kacaya faahfaahin dheer haddaa u baahan tahana YouTube soo daawada anigoo sharaxayna way ku jiraan
markii aan sameynayay 4 weeks ago ma ahayd I think so okay wax yararkaan ka jarjaraynaa so inta shaashada taataabanaysa aad u mahadsantihiin intana soo join garaynaysa inta follow garaynaysa inta bugaagteena gadanaysa jazakallahu khair this takes a while so iska yara dulqaata mana rabtid in badan inaad ka jartid laakiin mana rabtid wasaqda inay kuu gasho so waxaa rabaa in laga jarjaraa waayo gloves u isticmaalayaa because waxaa rabaa inaan waqti dheer isticmaalno ma rabo marka germs inuu galo si kasta gacmahaaga nadiif u yihiin gacmahaaga still waa germs so markasta ani gloves iska qaataa markaa kan sameynayo ama you know inaad isku daydid inaadan taabanin haddii aad rabtid cunto inaad meel dhigato haddii aad taabatid laakiin si kale noqonaya dhan waa fahanteen so naftaa ku wadahay ruuxda nala joogto SYL walaashay okay see dhac tartiib tartiiba loo sameeyaa waxaa jira mid saas loogu sameeyo laakiin ma haysto dadka kaas soo gadan kara okay so ana xasla intaana kugu filan tahay last time marka hal week u sameynay inta soo kala isticmaalay so hadda kana u isticmaalay saddexdaas xabo dhag waa jaraysa waa blend gareynayna hadana okay blenderka ku ridaya oo mixerka that's it maxaa kaloo loo baahan yahay waxaa silsataan qaraabo waxaa loo baahan yahay basal so let's get the basal nafta mar hore ka hartahay maasha allah maxay ahayd marka inta basasheedu way yar tahay aniga basal aad waaweyn marka isticmaalaysid just wax yar loo baahan yahay okay ani hadda waxaan isticmaali doonaa intaan I believe inta inay ugu filan tahay no wax yar ku daraya 1 second little bit more intaan oo kale isla way kugu filan tahay because aad u yarartaa basasheeda dhac marka ku daro marka kan meel iska dhigaynaa maxaa kale u baahanahay toon where is the toon garlic where is garlic oh it's here garlic toon tawaatana so labo last time saddex baa isticmaalay and that was enough saddexdaana isticmaalaya haddana waa fiiqaysaa so waxaa dhan blenderka hadda ku wada ridayaa maasha allah boqol qof aa ku joogtaan soo dhawaada waxaan sameynaynaa antibiotics dabiici ah ilmaheena si ay u helaan immune system kor u yara qaadan okay so ilmaheena diifaya hergebsan insha allah markay ku bilowdo sheekadan ku bilowdo dhac uga siida week walba ama 10 maalinba hal mar haddaa u sameyso maalin walba siisid insha allah qandhana ma qabanayso haddii ay xanuunsadaanna ma aragtay sidai u xanuunsan jireen si kayro dabacsan ay u xanuunsanayaan waxaan ka wadaa qandho iyo waqti dheer iyo dhanaa isdaynaysaan insha allah so toonta saddexaad ku daraya halkan maxaa halkan usoo maxaa u qaadanaya gloves because waxa waa shiidaynaa maalmayna oli doonaan so hygienic hygienic inaan ka fikirno marka gloveska hadda waa iska dhigayaa intii hadda isku shiidaynaa waxaa noo soo harana meelaan dhiganaynaa next week isticmaalaynaa okay bugaagteena rabaa inaan kaga sheekeeyo marka kulligii soo dhawaada shanta tiirul islaam ilmahaaga u akhrin kartaa markii ilmahaaga rabtid inay kuu bartaan diinta islaamka
picture book aa la yiraahdaa bugaagtan oo kale sawiraa ku sawiran ilmaha loogu talagalay inay ku fahmaan diintooda luqadda Soomaaliga ay ku qoran yihiin soo haddii aad tahay hooyo aaba ilmihiisa jecel diinta islaamka raba ilmihiisa inuu baro bugaagta ku fududayn lahayd waa kuwana tiirarka islaamka halkan waa tiirka saddexaad waa zakada marka waxay arkayaan cilmi caaliye ilmo yaryar dhar qurux badan u labisan ilmo yaryar waxba haysanin siinaya hadiyad dama u sharaxaysaa hooyo diinteena waxay leedahay in wax la isa siiyo masaakiinta wax la siiyaa af Soomaaliga meesha uu qornaa akhrinaysaa nashiidooyinka yaryar u raacinaysaa marka insha Allah kana waxaa la dhahaa dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam halkan marka ilmaha waxa uu sameynaysaa waa u akhrinaysaa waxay ka hadlaysaa siirada nabiga kooban sallallahu alayhi wasallam and then waxaa ku qoran halkan bara asaasiga islaamka bugaagtan ilmaha waxay u anfacayaan waxay ka dhisi doonaan diinta islaamka inay bartaan at the same time farahooda inay isticmaalaan maqasta because waraaqaha halkan ku qoran waa casharadaasna waa inay kasoo jarjaraan dhinacyada kale isku keenaan so sidaas oo kale maqasta inay isticmaalaan insha Allah okay shahaada salaad zakaat soon wax kasta ku qoran insha Allah so kulligiin soo dhawaada maxaa kaloo sameynaya at the same time bugaagta markaa ka hadlaayo mawduuca ka hadlayna wuxuu ahaa inaan idin tuso antibiyootikada dabiiciga ah soo waxaan sameeyay linti waa miiray waa tanaa halkan maxaa ku jira halkan waxaa ku jira cananaaski hadda idin tusay iyo waxaa ku jira basashi iyo toonti okay halkaas isku geynaysaa bismillah hada armin wali sugbal orange juice ka kor geynaysaa insha Allah ya okay marka inta ku darto waxa ku dareysaa markaas waxa ku dareysaa sanjabiilka qalalan okay sanjabiilka qalalan we like to do whatever we like in our lives so intaas sanjabiilka okay and then waxaan sameynaynaa huruuddan waa huruudda organiceeda maalin hore idin tusaaye haddii aad rabtid inaad ogaatid meesha kasoo gaday iyo sida wagtahay sida kale oo u isticmaalo oo ka duwan halkan kasoo daawo Badriya Lifestyle my other account oo ka hadla cuntooyinka iyo caafimaadka so huruudda waa ognahay waxyaabo badan ee anti inflammatory u tahay inflammationkii wax badan inay disho so halka intaasoo kale ka isticmaali doonaa okay ku dareynaa kadibna waxaan ku dareynaa manuka honey okay malab manuka honey wuxuu ku yahay caan waa ogtiin horta maxaa caan dhahaa nabigeena uga sheekay sallallahu alayhi wasallam malabka saafiga ah inuu infectionka u roon yahay so ilmaha markay ka xanuunsadaan ama immune systemkooda rabta inaad dhisto malabka aad u muhiim u yahay marka laba qaada ku dari doonaa okay qaadada shaaha laba qaado hadda ka waa hal maxaa kale mid kale that's it anagoo faahfaahinayna youtube-ka waa kasoo daawan kartaa okay oo xabad aan u kala sheegayno wax walba waxay taraan wax walba ma aragtay sababta loo isticmaalo so immune systemkaaga haddii aad rabtid inaad wax ka saxdid wax u samaysid ilmahaaga immune systemkooda rabtid inaad dhistid sidaana hadda sameynayo u sameey ani hadda 10 maalin aad kugu sameynayaa ama 12 insha Allah waxay gaarto kadib haddana waa sameyn doonaa consistently waa iska wadaysaa adi immune systemkooda jirkooda kor u sii kacay insha Allah markaana waxaa ka caawinaysaa inaan infection ku dhicin inaan hargab ku dhicin waxaas oo dhan insha Allah okay maxaa sameynaynaa marka far iyo suul cayenne pepper like intaas kasi yar isla yaaba because ilmaha la siinaya mugtiin so intaas oo kale
like fartaada iyo suulkaaga waxaa ku qaadi lahayd oo kale. That's it. Insha Allah. So maxaan sameynaynaa waa idin tusaaya okay sida wax isku yara noqdeen meeshaana ka yaraa hee wixii alaabta isticmaalay. So waa cananaas, waa linti orange-ka, waa cayenne pepper, waa toonti, waa malabkii, waa basashii, waa maxaa kale cananaas ma dhahay. Yes. So wixii dhan meeshaas aan ku sameeyey. Hadda waxaa la sameynaa marka waa la isku shiidayaa kadib halkaasaa lagu shubayaa fridge-ka la gelinayaa. Ilmahaaga aa siinaysaa maalin walba haddii xanuunsan yihiin 3 mar maalintii. haddii ayna xanuunsanayna waxaa sii kartaa 2 mar ama 1 mar sida adiga rabtid. aniga 1 mar aa siiyaa. Okay, waa xiraynaa then waa shiidaynaa. Flu jab. Okay, just check waxa dhamaysku milmeen. Yes, it's done. marka soo qaadayna insha Allah. ma sha Allah halkaas ku shubayaa. waxa balq ku dhahay maqlideen waa shiidaya hadana because I don't want inuu afka u galo. Okay, si fiican uma shiidmin. Okay, let me do it again. Yeah. Okay, that's it. Bismillah. Look at that, how smooth that is. Sasa loo baahan yahay, okay? For life ma la cunay. Waxaa ku dhihi lahaa 6 bilooda winterka iska cuno bal intaas. Winterka markuu yara dhamaadana bal arag sidee wax noqdaan. Because immune system-kaaga kor markuu u qaadan yahay dhaqsi kuguma dhacayso flu iyo jir iyo waxaas. laakiin haddii immune system-ka dhacsan yahay maanta dhan ilmaha waxay la qufacayaan waxay maaragtay u diifayaan is because immune system-kooda ma wanaagsana. So you just try saan u sameyso kadib fridge-ka geli. marka aad sameynaysid inaa ilmaha siisidna saa u yara ruux mujidaa saa u yara ruux. marka saa u yara ruuxdo marka berri la gaaro insha Allah way ka yara adkaanayaan sidaan hadda wax yar waa biyo berri way ka yara adkaanayaan wayna ka yara macaanaanayaan. hadda haddii aan cuno waxay u noqonaysaa maybe little bit si kale laakiin subaxii dambe maasha Allah ay noqonayaan waa jeclaanaya. Okay, bismillah. maasha Allah. maasha Allah. So ilmaha hadday ka yara diidaan is okay. haku adi cun kadibna biyo sii. biyaha markii aad siiso u sheeg hooyo way wanaagsantahay inaad cuntid si dhuunta kuu xanuunin si maaragtay jirka kuu xanuunin si hargab kuugu dhicin. markii weekendigoo kale ku bilaabana okay si weekendiga ku bilaabo and then sidaa ku wad 1 mar markii ilmaha kuu fahmaan ha joojin. waxaa ku wanaagsan ilmahaaga markaa aadaab barto ama wax aad barto inaadan ka joojinin aadaabtaas iyo waxaas aad bartay oo wanaagsan waxyaaba wanaagsan ka hadlaya si ay ula qabsadaan. Okay, markaasna inta hadda iska kala toosinaya soo qabsada dadkii sameeyay ila sameeyay ama dadka hadda kor ila sameeyay maxaa ka faa'iideen meedin anfacday ilmihii ka warrama sidee tiin adinka soo qabsan kartaan.